بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، maanta بإذن الله waxaynu wax yar oo kooban ka taaban doonaa taariikhda iyo xaqiiqada ay leeyihiin nimanka loo yaqaano jamaacatu tabliiq oo ah kooxda wadankeena looga yaqaano khuruujka. waxaynu insha allahu tacaala ugu horeyntaba ku furfuran doonaa inaynu turjumno aynu af soomaali u bedelno hadal uu yidhi asheekh musamil fagiiri, sheekha suudaaniga ah ee runtii ilaahay subxaana wa tacaala cilmi uu siiyey, diinta islaamkana wax badan u qabtay. acdaada islaamkana dhammaantood hadday noqoto suufiya, hadday noqoto tabliiq, hadday noqoto ikhwaan muslimiin, hadday noqoto kuwa qarqarxiya, isku wada geed dhammaantood wuxuu ku noqday runtii laf dhoon gashay. waxaana ii sheegeen dad waddankaa degan oo waxa weeye ardaydiisa ka midii inuu sheekhu yahay mid la eeganayo ama bannaan in lagu qabto la sugayo si waxa weeye loo dilo. isaguna waxa uu afkiisa ka qirto aan ka maqlay inay daacish soo garaacday oo ku tiri markuu daacish ka hadlay kadib musamil waan ku dilaynaa, waxaan kugu dilaynaa meesha loo yaqaano shajara oo ah xaafad ka mid ah xaafadaha ku yaala magaalada Khartoum ee caasimadda Suudaan. sheekhu wuxuu yidhi waan u baxay oo waxaan ku yidhi bannaankeena geeya, dabeedna wax iska celiya. adigu almuhim sheekhu waa nin la daba socdo oo dhammaan ahlulbidaca dhammaantood isku wada gee ay doonayaan inay ka takhallusaan oo ay kow kaga siiyaan. sheekhu wuxuu yidhi allah barakeeye. جماعة التبليغ دي صوفية يا جماعة، صوفية. جماعة التبليغ رجل لو يقانو أما كوا خروج كبحاء وصوفية نقشبندية، ده أصلها من برا. ولي بالصوفية ده نوع لو يقانو نقشبندية ده كوا ده هوري واسداس إيه نقشبندية يهين. نقشبندية والنوع كم ده الصوفية ده أو صوفية ده دور نوع كلا نقشبندية ليهين، تشدية ليهين، سمانية ليهين، قادرية ليهين، ختمية، عيدك بديهين على كساسانية ليهين من الرابط. مركا شيخ وحيدي جماعة التبليغ أصل كوا نقلق صوتيدا صوفية كارها نوع على يقانون نقشبندية. عرفتها؟ فديل أصلا أهل بدع وصوفية أصلا. ما قرأتي؟ أصل أهان تبليغ وأهل البدع والشيخو، وأنا الصوفية أصل أهان. وأعظم مركز لهم في مدينة دلهي في الهند، وده المركز الأول لهم في العالم. مركز كوجوين الليهين يكوي على مقالة دلهي هندي كتة الله، وأنا مسجد كيجوه الرئي كسو أساس مينه. ده والآن أكثر من 3 أو 4 قبور وأضرحة. ما أنت وحكي لا إن كفر بدن صدح إلا أفر قبري يقبور العابديو أضرحة وقبورها لدسو لو ضوافو عدة كتشتين لبرية مركع تعبد من دون الله. من بين تلك الأضرحة والقباب قبة محمد الياس الكندهلوي الدهلوي. إلهي سكذبان لقو عابد قبورهاس قبرية لدسي إلا عابديو وحكمده أو جوه الرئيسة qabrigu ku aasan yahay maxamed bin Ilyas al-Kandahlawi Dahlawi. wuxuu ga jeedaa waa magaaladii ku noolaa Kandahlawi Dahlawi ee loo nisbeeyay markaa. aslanna berigii hore qofku meesha ku dhashay loo dhijiray hebel bartaasu yaara loo nisbeeyaa. فجماعة التبليغ دل من أعداء الناس للدعوة السلفية. wuxuu sheekhu yidhi jamaacatu tabliiq waa kuwa ugu cadowsan أعداد أي ليهين ضدك الدعوة السلفية كتيرا. حتى قال إمامهم إلا أجري إمام كوغيكي أساسي لو كانت لي سلطة لحرقت كتب ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب ومحوتها من الوجود. حدي أن أود لي هاي وانقبي لها كتب ابن تيمية يا محمد بن عبد الوهاب وأنا كبا بينها هيرتانك أو بمعنى لما هلين حدان أود لي لكن أود ملهيم كي الناس أعداء ضدوا كوني وعدو